مسلمكا قفك كلو مسلمكا وكل يهي حقوق ذا اللي يسكول يهي ويبضنتهي ولا ليال إلهي با حقوق ذا مسلمين تدحذو ذا دحتا لآدو فربذيي قفك صوبحي كرانا ويريهي حقوق ذا اللي يسكول يهي روح كستو مسلمنا وحاوجوب كوا إنو إلاليو أو حق دور قفك كلو مسلمكا حقا وكل يهي لأن إلهي با مسلمين تولا ليي وحكو ولا ليي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكو ولا ليي كتابك إلهي وحكو ولا ليي النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولك وادقران إيسان سيرادة سيداد لوضا سعوطان با بقول إيا اللباتن سنة مدكبضا قوم يالكي دقالمي أو أوسيا خزرج لورنشري نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيكو ولا روبين نقنكي حمايو جاهلي باي كهرين وحي سهريو سمايين بي إلهي وطوبة كانين قعمها ييس قبصدين وحي كو نقمن كتابك إلهي بيكو عمل فلين قفك استا قفك كالاتو ولالكي سبو احترامي مسلمين تي كالو مهاجرين تابي صحابتي بي سود دويين ماشي النبي وجوغين عليه الصلاة والسلام أنصار باللو بحيي حقوق ذا مركا دحذنا إنا للالينو وانو اسكنا حريصنو وقفك استا قفك كالو احترامه وعرب كيس او كنبت قليو وقعنتيس او كنبت قليو وسنقعنا كل بن عربنا كل بن باوجوب نقواه لأن إلهي وحو ليه سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة مسلمين توا ولاله مؤمنين توا ولاله أيو يري إلهي سبحانه وتعالى حدي دباتو نحذو دا يتالو oo dhibaato iyo dagaalo iyo waxyaabo noocaasi ay dhacaan inaad waxa weeye aad dabkiisii hurusay ma la ogola inaad waxa weeye shay xaraam aad banaysatana ma la ogola inaad walaalka dhiigiisa daadisana lama ogola inaad hantidiisa ku qaadato dulmina lama ogola inaad waxa weeye aad ku xadgudubtana lama ogola muslimiinta waxaa wajiib ku ah labada ruux oo walaalahooda dagaalama oo dhibaata ay dhaxmarto in markaa islaax ay ka shaqeeyaan baa wajiib ku ah ilaahay wuxuu jecel yahay dadka islaaxa ka shaqeeya buu jecel yahay ilaahayna wuu kala yaqaanaa caalim buuna ku yahay ruuxa mufsidka iyo ruuxa muslixa oo hagaajinaya qofka waxa laynaya xitaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam وحو يري صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس لمي فينمي خيرا أو يقول خيرا بو يري النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين ملغوت المامي كرو هذا الله أو نحيو قفك ضدك دحدو دا إصلاح كشغية هذا الكورنا يبين حتى لما يرهد بو يري النبي عليه الصلاة والسلام وحتى وقت يدا بنتي قفك اللوم مسامحة يبي كمتهاي لأن وحو سمينا يا مصلحة وين او دينتي يا ضدك يا الدنيا دي انت بفائدة واه إصلاح وافي عيهاي حدي الله بقفو دبعات دحمر تواله الشيسية حدي الله بروحو صاحبا استقالان واله الشية حدي الله بروحو درسو استقالان هشيس بالدحدود الله دحدقا حدي أرضي معلم كيسا وحكالا قاران هشيس بالله دحدقا haddii walad iyo waalidkiisa wax kala gaaraan heshiis baa la dhaxdhigaa haddii zawjkiiyo zawjada isqaba xitaa dhibaato iyo waxyaabo nooca la dareemo khilaafa waxaa markaa laga shaqeeyaa sidaad u heshiisiin lahayd annaga haddii aan Soomaali nahay qaybta kale oo wanaagsanayn oo dulmiga iyo namiimada iyo fitnada ah ayaan markaa oo dadkiina sii hurino ayaan u badannaa waa inaan midda iska ilaalinaa إلهي وحو يري سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس dadka markii isku imaadkooda iyo faqidooda laga hadlaayay dad badan oo isku yimaado oo meel isku wada faqa faa'iido kuma jidhabo ilaahay yiri ilaa qoladii markay isku yimaadeen wanaaga isfarahaya sadaqada isamrahaya wanaaga isamraya dadka hagaajintooda isamrayo oo ummadii hagaajinaya hada heshiisku waa khayr wa sulhu khayrun bu ilaahay yiri adigana sadaqay ku noqonaysa
kaalmada aad u kaalmayso walaalka gargaarka uu kaa rabo iyo xaqa uu kugu leeyay ka mid tahay inaad waxa weeye haddii dhibaato iyo aad dareento inaad qofka asaga iyo isqabtaan inaad heshiis dhex marido taadilu bayna ithnayni sadaqa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xitaa laba qofood oo dhibaato dhex taallo oo la heshiisiiyaahu waa sadaqo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa waa inaanu qaadannaa mawduuceennan caawa waxaan ku fiiri doonaan uga hadli doonaa insha allah xaqu lmuslim cala almuslim ruuxa muslimkaa xaqa uu ku leeyahay ruuxa kaleeto oo walaalkiisu ilaahay la walaaleeyey muslimiintu waa walaalo inay isdulmiyaan ma bannaana inay cadowga isku sallimaanna ma bannaana inay dhibaatada isku eegtaanna ma bannaana dhibka walaalkaa inaad ku faraxdana ma bannaana inaad ceebihiisa faafidana ma bannaana inaad xasadana ma bannaana inaad beecfallistana ma bannaana inaad u carootana ma bannaana inaad salaamta la ag martana ma bannaana beeca uu ku jiro inaad gashana ma bannaana inaad dulmidana ma bannaana inaad dhiiggiisa bannaysatana ma kuu bannaana inaad maalkiisa bannaysatana ma kuu bannaana inaad sharaftiisa meel uga dhacdana ma kuu bannaana inaad xamatana ma kuu bannaana inaad yasto ood liidana ma kuu bannaana inaad waxa weeye waxyaabaha oo dhan ku samaydahay waa kaa xaaraam wauna nabigeennu naga reebay sala allahu calayhi wasalam haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuquuqda aan isku leenahay ilaah wuxuu gaarsiiye ou yidhaahdo qofku iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa uu la jeclaado walaalkii waxa naftiisa uu la jecel yahay iimaankeenni wuxuu ku xiran yahay inaan muslimiinta la jeclaano wanaag inaan muslimiinta walaalka inaad la jeclaato caafimaad inaad waxa khayra la jeclaato inaad wanaagga la jeclaato ayuu ku xiran yahay xitaa iimaanku asagoo arrintaa nabigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu anas binu maalik saxaabiga la yidhaahdo oo uu ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsih midkiin iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaahayna ma rumaynayo mu'min kaamilana noqon maayo ilaa maa uu walaalkii la jeclaado naftiisa wuxuu la jecel yahay ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam iimaankeennu wuxuu buuxsamahayaa oo iimaankeennu uu kaamil noqonayaa oo mu'min wanaagsan aan noqonaynaa markaan la jeclaano muslimiinta markaan wanaag la jeclaano markaan shayga khayrkaa la jeclaano markii aan waxa wanaaggaa la jeclaano caafimaad baad jeceshahay oo doonaysaa waxaad rabtaa owlaad inuu ilaahay ku siiya baad jeceshahay owlaaddu inay baari kuu noqdaan baad jeceshahay sida aad jeceshahoo kalaa walaalkaa lala jeclaadaa haddii aad sidaas samaydo iimaankaagii markaa kaamil buu noqon hayaa qof mu'mina oo iimaankiisu dhammaystiran yaabaad noqonaysaa gaalada xataa inay soo hanuunaan baa lala jeclaadaa ilaahay baa loo barya ilaahayuu soo hanuuni nabigeennu waa u ducay jiray calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u toogi jiray ilaahay inuu soo hadeeyo soo hanuuniyo sayidunaa cumar ibnu alkhadaab ayaa maalin waxaa la yidhi waddanka shaam buu yimaaday marka waddanka shaam markuu soo galay nin oo waxa weeye baadari ah oo waayeel ah oo da'weyn oo baahida ka muuqata iyo madoobaadka iyo aad la yaabayda baa u yimid baa la yidhi falammaa ra'aahu cumaru bakaa markuu sayid cumar ninkii indhaha saaray buu iska ooyi faqiila lahu maa yubkiika yaa amiira almu'miniin innahu nasraaniyun baa la yidhi waa baadari nasaari ah maxaa kaa oysiinayo dula oynaysaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi dakartu qowla allahi caza wajalla caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya fabakaytu raxmatan calayhi buu yidhi wuxuu yidhi sayidunaa cumar ibnu alkhadaab waxaan la oynayaa buu yidhi waxaa igu soo dhacday aayadda ilaahay markuu ilaahay suuratulkaashiya aayadda ku jidha uga hadlaayay dadka ahlunaarka waxaa la yidhi waa shaqaynayaa wujuuhdaani waynan dhiboonayaan naarta jahannamo oo kulaylka badan bay gelayaan baa la yidhi
asagoo gaalku adduunyada ku dhiban oo barafka iyo balaayada iyo masaa'ibtaad aragta ku dhex jira ayuu haddana aakhiro dhib kastoo adduunyada uu ku soo maray cadaabta ilaahay buu ku jirayaa. marka raxmad aan u qabo ayaan la ooyey buu yidhi sayiduna cumar ibnu alkhadaab. haddaba waxaad dareemaysaa inuu waxa weeye xataa raxmaddaas in naloo kaga baahan yahay, leanna rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man laa yarxam laa yurxam, qofaan raxmadoon looma raxmadoodo. haddaba walaalaheenna waa inaan isku naxariisannaa, waa inuu qof kastaa carabkiisa koontaroolaa, waa inuu gacantiisa ka adkaadaa, xaqa walaalkaa kugu leeyahay waa inaad ilaalisaa, waa inaad ilaahay dartii walaalkaa u jeclaataa, waa in haddii aad nacaydo ilaahay daraaddii aad u nacdaa, waa inaan xasadka waa xaaraam walaalayaal. dembi ka dhaca adduunyada ayuu dhulka ka dhaca buu ugu horreeyey, dembi ka dhaca samada ayuu ugu horreeyey. waxaa bilaabay shaydaan iyo qaabiil baa bilaabay. qaabiil wuxuu xasday walaalkii haabiil, shaydaanna wuxuu xasday waxa weeye nebi aadam. xasadku waa xaaraam, xasanaadkaaga ayuu dhammaysanayaa siduu nabigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. xuquuqda marka waxa weeye la isku leeyahay oo walaalka uu kugu leeyahay waxaa ka mid ah xadiis imaamu albukhaari iyo muslim ba ay wariyeen oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abi hurayra uu ka soo wariyey, ayuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaqu lmuslimi cala almuslim khamsun, ruuxa muslimkaa xaqa uu ku leeyahay walaalkiisa kaloo muslimkaa waa 5 ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. riwaayaadka qaarna waa 6 baa soo aroortay. midda ugu horrayda oo xaq lagugu leeyahay raddu salaam ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. markuu kaa hor yimaado oo assalaamu calaykum ou ku yidhaahdo waa inaad ka radisaa, wa calaykum assalaam baa la yidhaahdaa. weliba salaamtuu kugu salaamay mid ka fiican baa lagu salaamaa, oo haddii uu ku yidhi assalaamu calaykum waxaa lagu yidhaha wacalaykum assalaam waraxmatullah. hadduu kugu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah waxaa loogu jawaabaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay aayad qur'aan uu nagu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aw rudduuha. haddii salaan laydinku salaamo, salaamtii laydinku salaamay mid ka fiican ku salaama ama radiya ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. xaqa koobaadu la isku leeyaha bay ka mid tahay inaad walaalkaa salaamta ka radiso. haddii kaligaa aad tahay hal qof adigoo al lagu salaamo, inaad salaamta uga jawaabtaa wujuub bay kugu noqonaysaa oo fardu cayni ah. haddii aad laakiin jamaaco badan ay yihiin, markaa waxa weeye raddigeedu waa fardulkifaa'i baa la yidhaahdaa. hadda waxa weeye salaamta bilowgeeda oo sunno ah iyo waxa weeye raddigeeda oo waajibkaana bilowgeeda oo sunnaha baa fadli badan baa la yidhaahdaa. xaqa labaad uu kugu leeyahay halkii mar oo qofku uu yidhaha assalaamu calaykum kale ah waxa weeye 10 ajir baa loo qorayaa. waa xuquuqda la isku leeyahay. asxaabta qaybo ka mida subaxii bay soo bixi jireen, suuqa ayay soo wareegi jireen ayagoon dan kale u soconin oo kaliya ay tahay qof kastay ka hor yimaadeen inay ku dhahaan assalaamu calaykum waraxmatullah, leanna salaamta ajirkaa faraha badan bay ka raasanayaan. sidaas baa la yidhaahdaa. hadda waxaa la salaamayaa waa qofka muslimka ah. amaa gaalkii hadduu isa kaa yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam lama odhanayo, sida nabigaba laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam. waxaa loo odhanayaa wacalaykum kale ah, assalaamta lagu dari maayo. waxa weeye ayada taa sidaas baa la yidhaahdaa, oo salaamta taa oo kale in laga fiirsado weeye, oo aan gaalka sida muslimkao kale aan loo salaamin. sidaas baa ku soo aroortay axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam idaa sallama calaykum ahlulkitaabi faquuluu wacalaykum. ahlu kitaabku hadday idin salaamaan wacalaykum kaliyow dhaha buu yidhi, wacalaykum assalaamta ha ku darinina ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. inaannu marka ilaalinno aadaabta salaamta ayaa loo baahan yahay. salaamtu sidaas bay u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii, waana xaqa uu kugu leeyahay walaalkaa inaad salaamto. hadduu ku salaamo salaamta aad ka radido, sidaas baa la yidhaahdaa. ilaa dad laga soo reebay oo markaa waxa weeye shareecadu ay ka soo reebtay maahane
inaad salaamta sida aadaabteeda loo ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. ajirkaa faraha badan baa laga helaa. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiistaas buu uga hadlay nabigu sala allahu calayhi wasalam. waa inaannu ka faa'iidaysannaa xaqa koobaad oo walaalka uu kugu leeyahay. midka ugu horreeya oo xuquuqda uu kugu leeyahay walaalkaa waxa weeye inaad salaamta haddii uu ku salaamo aad ka radiso uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa raddu salaam. xaqa labaad wa ciyaadatulmariid buu yidhi, haddii uu jiran yahay waa la soo booqdaa. booqasho ayuu xaq kuugu leeyahay. waa loo kaalmeeyaa, waa loo gargaaraa. sii socodka iyo soo socodka ajir baad ka helaysaa. beer janna midhaheeda adoo guranaya camal bay la mid tahaa la yidhi. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, xaqa uu kugu leeyahay walaalkaa waxaa ka mid a waatibaacu ljanaa'isi buu yidhi. haddii hadduu qofkii geeriyoodo inaad maydkiisa sagootido ayuu xaq kuugu leeyahay. wuxuu kaloo yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, waxa weeye wa ijaabatu dacwa. haddii uu cursi iyo aroos iyo wax qabo, waajib waxaa kugu ah haddaan shuruuddii iyo waxyaabo asbaabahoo reeba haddaysan jirin inaad ajiibto ayaa wujuubu kuugu leeyahay. waxa weeye waliimada markuu kaa waco. xaqa shanaad uu kugu leeyahay waxa weeye wa tashmiidulcaadisi, marka uu hindhiso in laga farxiyo. haddii uu yidhaah alxamdu lilaah, marka uu hindhiso waxaa sunnaa qofku inuu yidhaah alxamdu lilaah, ilaahu waday mahadu kuu sugnaatay. leanna waad aragtay hindhisyadu markay kugu ceshoonto dhibaatada kaa soo gaaraysa waad garanaysaa. markay kaa soo go'dana caafimaad baad dareemaysaa. ilaahay baa loo mahadnaqaa li'anna nicmo ilaah kuu gala weeye. qofka markii uu hindhiso haddii aad ka farxiso walaalkaa oo aad ku tidhaahdo yarxamuka allah, haddaad u tidhaahdo asaga waxaa sunnaa inuu yidhaah markii uu hindhiso alxamdu lilah. adigana waxaa sunno ku ah inaad u tidhaah yarxamuka allah. xaqa uu kugu leeyaha bay ka mid tahay. asaguna waa inuu kuu yidhaahdaa yahdiikum allahu wa yuslixu baalakum. hindhisyada 3 mar haddii ay dhaafto waxa weeye waxaa markaa loo odhanayaa rabbi ha ku caafiyo, caafaaka allah baa loo odhanayaa baa la yidhi. xadiiskaasi waa muttafaq. riwaayo muslim kaliya warinayana waxaa ku qorneed oo waxa weeye ku ahayd waxaa xuquuqdan ka mid ahayd xaqa lixaad uu kugu leeyahay waida stansaxaka fansax lahu buu yidhi. waida stansaxaka haddii waxa weeye ou kaa naseexo dalbo u naseexay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. hadduu naseexo kaa dalbo oo shay wanaaga ou kaa dalbo u wanaagsamay baa la yidhi. xuquuqdaas bay walaaluhu isku leeyihiin. xuquuqdaabay muslimiintu isku leeyihiin. aan hadda soo tirinay. waxaa kaloo ka mid a ruuxa waxa weeye oo xuquuqda ka mid a xaqa toddobaad uu kugu leeyahayna waxa weeye xaqa toddobaad uu kugu leeyahay waa ibraarulmuqsim buu ku tilmaamay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddii ou dhaarto oo waxa weeye ou kugu yidhaahdo walla aqsamtu calayka billah latafcalanna kada, sidaas hadduu ku dhaarto u yidhaah wallaahi latafcalanna kadaa buu yidhi, saan maanta waad yeelaysaa. waa inaad ka yeeshaa ood u baarinimo samaydaa. xaqa 8aad uu kugu leeyahay waxa weeye oo walaalkiis ou ruuxa walaalkiisa kalaa ku leeyahay wa nasri lmadluum ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. qofkii la dulmiyo inaad waxa weeye u heeliso oo ruuxa dulminaya aad ka celiso. ruuxa kaleeto oo xadiis kale waxaa ku soo arooray unsur akhaaka daaliman ow madluuman buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. walaalkaa haddii uu yahay daalim iyo haddii uu yahay mid la dulmiyo labadaba u gargaar buu yidhi. faqaala rajulun yaa rasuula allah ansuruhu idaa kaana madluuman ara'ayta in kaana daaliman kayfa ansuruhu yaa xabiib allah. wuxuu yidhi nabiga saxaabigii isagoo su-aasha weydiinaya. saxaabi baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow walaalkay haddii la dulmiyo waan u gargaarahayaa leanna dulmiga ayaan ka celinhayaa. laakiin haddii asaga waxa weeye uu daalim yahay oo dadkii uu dulminayo seen ugu gargaarayaa ayuu yidhi ninkaa isagoo nabiga su-aasha weydiinaya calayhi salaatu wasalaam. nabigu markaa nachu min adulmi fa ina dalika nusruhu rawaahu lbukhaari. dulmiga ayaad ka celinaysaa, gacanta ayaad ka qabanaysaa.